arxim assalaamu calaykum kusoo dhawaada saafi channel oo aan kaga hadalno waxyaabo faa'iido u leh bulshadeena. maanta waxaan rabaa inaan idinla sheer gareeyo kareem face cream aan guriga ku samaysto oo aad u fiican oo maxay ta faa'iido badan u leh maqaarka. maanta waxaan isticmaalaynaa marka subagyo kala duwan iyo maxay ta saliidooyin kala duwan. hadda kan waa cocoa butter la dhahaa. cocoa butter wuxuu u fiican yahay maqaarka, waliba kuwa darayga ah. scaris haduu maqaarkaaga leeyahay wuu kaa caawinayaa, stretch marks wuu kaa caawinayaa. waa kareem khafiifa oo jidhka markiiba uu qaadan karo. kan waa mango butter. mango butterka fitamiinaad badan ayuu leeyahay sida vitamin A iyo vitamin C. wuxuu leeyahay maxay too fatty acids muhiim ah, waa antioxidant. maqaarka ayuu aad ugu fiican yahay, ayuu iftiimiyaa mango butterka, khaasatan maqaarka darayga ah. kan hadda waxa weeyaan aan ku darayo waa shea butter. shea butterkana faa'iidooyin badan ayuu jidhka u leeyahay. wuxuu leeyahay maxay too dux fiican oo balance garaysa saliidaha wajiga sii daayo. fitamiinaadka ku jira waa vitamin A and vitamin E. wajiga maxay ahayto ma aha kareemooyinka wajiga marka la mariyo daloolada wajiga ku yaala daboola ma aha. waxa kuwaas loo yaqaanaa non comedogenic, marka wajiga ma daboolayo daldalooladiisa. jirka inuu qaatana waa u easy. acnigu kaa caawinayaa. collagenka jirka uu sameeyo ayuu ka caawiyaa. wrinkleska kaa caawinayaa. qoraxda ayuu kaa difaacayaa. hadda waxaan ku darayaa wax yaroo jojoba oil ah. jojoba oilna waa saliid aad u fiican oo wajiga u fiican. tan waa argan oil. iyadana argan oil waa wada ogtihiin, iyadana timaha iyo wajiga labadaba waa u fiican tahay. marka maxay ahayto wax yaroo argan oil aan isticmaalay. hadda waa avocado oil. avocado oilkana iyadana ku darayaa. marka maxay ahayto subagyadaas iyo saliidahaas kala duwan ee fiican oo wada organic ah oo aan soo xushayaan ku isticmaalayaa. butter waxaa kasoo baxayo maxaa la dhahay kareem fiican. hadda ugu dambeyntii wax yaroo waxaan ku darayaa vitamin E ah, sidaa ujeediinba, iyo wax yaroo aloe vera gel ah. aloe veradana aad ayay maqaarka ugu fiican tahay. marka maxay to waxyaabahaasoo dhan markaan isku daro dhalinyaraan ku shubi doonaa haddii ilaahay yiraa. halkaasaan ka isticmaalayaa. ciyaalkayga igu foorjaya waxaan iraadaa maxay to lacag laguma hela alaabtan qofkii samaysta uuna hela. xataa haddaad lacag kasta sheegtid suuqa alaabtan oo kale kama helaysid. adoo samaysta uuna heli kara. maxaa la dhahay soomaalida biyo sacabadaada looga dhargaa. marka kareemkii waa kaasaa. waxa waaye fridge-na ma gelinayi, meel caadiyan dhigayaa. bil xitaa waa gaara, wax ka halaabaya male, because wax biyo ah iyo wax qurminaya toona kuma jiraan. waa saliida iyo butter la isku daray. waa saliida iyo butter, waa kaasaas uu egyahay, wax ka halaabaya ma jiraan. marka maxay ahayto kareemkan aniga habeenkiian isticmaala khaasatan because waa kareem dux badan leh. marka maalintii kareem kaloo khafiifaan isticmaalaa. kareemkan waa habeenkii because habeenkii waxaa loogu talagalay jirka in la nafaqeeyo oo nafaqo fiican oo dux fiican u helo. marka bahalkan habeenkiian isku dhamuuqaa. dux badanuu leeyahay, gariis badanuu leeyahay. waxaasoo dhan jirkaa liqaaya because nooca kareemkan waxa waaye markiiba jirkaa liqa. marka maalintii haddaa rabtaan kareemooyin khafiifa aad isticmaali kartiin, laakiin kan waa kareem habeen loogu talagalay. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan. haddaad ka faa'iidaysateen tambis up subscribe gareeya. wassalaamu calaykum waraxmatullah.